ولا اللي waxaan u qabsanay mushaar la'aan xaquuq la'aan u qabsanay ciidamadii dalka u soo halgamay baanu nahay difaac baanu ka nimi 7 bilood oo mushaar baa naga maqan ma garat bal sawir ka bixi meesha aad joogtaan walaal meeshaan joogno waa kastan dawladeed weeye kontaroolka Garowe ee koonfureed weeye waa hawshu waa kala socotaa marka baabuurtii lacagta laga qaadayay cashuur idinka qaadaya wax hadda anagu aanu bono aanu jarayna ma jiro laakiin talaabadii qabsashadii baanu hadda qabsashanay sidii aanu yeeli lahayn waa ka tashanaynaa xageed difaac uga jirteen ka timaadeen waxaanu ka gobolka Mudug ciidankii qayb weeye anigu waxaan ahay raggii ku dhaawacmay nin dhaawac baan ahay wax dhaawacii mid dhintay xuquuq ma helin mid dhaawacmay xuquuq ma helin daawo ma helin Allah waa daawo aanu helnay mushaharkii baanu leenahay ma garat marka arrintan soo fiicneen inta gadoodaan dadkii xayiri lahaydeen oo jeedka aad xiri lahaydeen oo baabuurtii iyo magaaladii dhamaad qalqal gelin lahaydeen Soomaaliya marka hore ma haboonin la hadashaan saraakiisha walaal waa la hadalnay dan baan ugu kaliftay markii koowaadna maaha waa markii labaad iyo markii saddexaad weeye waa wax dan kaliftay ma garat dhawaan madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas waan wareysanay wuxuu sheegay in ciidamada difaaca ku jira mushaarkooda ay toos u helaan marka adiguna waxaad sheegaysaa inaad ka timaadeen difaaca oo aad lacag la'aan iyo mushaar la'aan sheeganaysaan madaxweynaha xaasha anuu ma oran karo madaxweynuhu been buu sheegayaa haddana iyadaa kuu muuqata runta ragga kama dhexaysa la yiri wax ka jiro aan kuu sheegay 7 bilood oo mushaar baa naga maqan daawicii oo aan dhaymo iyo daawo toona helin oo alla kiniinku mushaarku kiniinka siisan lahaa aanu laanahay waa gartay marka hadda controlka Garowe un baad joogtaan mise meelo kale oo ciidamadu ay ku qabsadeen oo ku faafeen oo gadoodka u gaaraa jira ciidamadu walaale anagu controlkaanu joognaa ciidanka qaybna difaaci bay jidaan ma garatay waxaad iga gudbisaa madaxweynaha Soomaaliya waxaanu ka codsanaynaa walaale musuqmaasuqa ka jira Puntland oo waliba haysta ciidanka Puntland inuu fiiriyo talaabada xigta hadda controlkii baad qabsateen waad gadoodeen talaabada xigteed qaadaysan maxay tahay idin qorsheysan sidii aanu waxyagu u doonan karno baanu u doonanaynaa anagu waanu xishoonaynay hub nagu filan waanu haysanaa ragna waa haysanaa mushaarkayagii meeshuu jiro waanu naqaanaa sidii aanu u doonan karno ilaa iyo xad waa samraynaa baan ula